shirka marka ma idinku gooniyiin ahaa mise cid kale ay jirtay oo marka ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo marka ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen may shirkaba waxaa la yiri waa in calanka la soo hindisaa waa la dhowraya waqtiga nala siiyay waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa la idinka United Nation baa soo dirtay adeeg waxay yiraahdeen waa kan lagu joogay oo Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garto ay gartaan saasana loo sheegay annagii baa markan la yiri keen calan annaga calankii anigu aan keenay wuxuu ahaa anigu aan mahira lahayn taas waan cadeynayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dadii hindisay ama ragigala mashaawirooday ama anigu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii beriyo kale la fariisanayay مثلا أنا وسنتر الكوميتي بان كمدها كوميتات السنترال دالله إن أنت قلنا قالن كاسان وقت عنو وأنا قاعد شقالها لما فريست اللي قدم يلقوني عن فريست هذا اللي قدم أنت برطلين بلاي ودنا وسئل حمال وفيريا ويا هي بالي الله كوب بركة أنا كساعة كان عنو ماشي ذي هدي واحد بدل لهلا هي ولا لما ناقش هذا أنت هذا الكيل ربي العابين taasaan ka soo dhaafay yaan waxaan idhi oo la yiri meeshan maanta waxa laga hadlayaa inka chairmanka ma ku furay calan waxaan la waxaan goynayay nimankii halkaan fadhiyo isna tashiic leeyahay yiraahdo consider territorial wadanka marka mucaabtiisi saas daraadeed baa maanta shirkan waxaan ku furaynaa calankii daraad intaas markuu yiri oo calamo badan la keenay أنا ما هذني وقدم بيننا وحنا مستجير معنا وحنا تبع عند الرئيس كمية شكاء إنتان والله جاهل دين وأنا عندي بدي هالجمنا شوان وحنا عد سنة جاه إلا يجري وبروبوزل عنو عن ليه محمد عوالها وحنا نقول ماشي عن هالكيا كونسل كا طبعا إنه عن صومالي أفروا طلياني أفروا عرب لو هند باكستان. ومتى أيهم هيك قوانا هي ماشي. وهيك قوانا هي و economic operators ذلك الدقيقين لا والله يجا هيستا طلياني جودي بقى يميت هدد وابرق فرضاً بكم وقدا وقدرة حتى بروتاليان كان من كان الحاجة كلي بيها كم دوي هاي حسبي بقى جد دب وطهال كان سوى هل هذا يجي ماشي ما دام هذا هي لودي بيقول administrazione fiduciario وعدت كدلك يشوفها يعني ما كان كل ده تبان كعجيبة وبريت عم بيريه الدكان مدي مقايدي إندسترياليا يقعد سما واحد سترمار هرجع قوي أذكره إنه يودن كون دولت كدقان هذا نمان كان واحد كما يحل كران عالم وحي كل الله كيانه لا بأس ما دام هيرودا سير منك ما يأذو يقول ما هذلك ردد بانه وحي قال هذلك كرا كونسل كوا يجودان سومالي ديوي وحن ربا وود اللي يجري وود اللي يجري ما يشورت وانتم هذه عاد الصومالي دي وفرح هذا الكلام انت عن صومالي هن ماشي كبحلي صومالي خاصة مع شير مانكين لو تشوفوا انه حنري من صومالي هن كبغنين ninka rag u fulweyn oo mudnaa meesha joogay yani aan ku dar proposalkayga isagu jeernaanam taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saameysay hay qoomi ahaan kii laga hadlay oo geedi lagu raabo qolo wadateed la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan yiri jeermaanka aan jeermaan anigu caalam baan wadaa halankan hadda aan wadana ma calan xisbi iyo qola iyo nin gooniye iyo midna waa calan Soomaaliya waxaan ka codsanayaa odayaasha sheedan hadalka dhameeyo waa idin tusaya inaan hadalkayga dhabqin oo la iibaya dhabna la ii dhageysta macnaha markaad garataan saadoontay laakiin marka hore dhageysta qola meeshii joogtaa yiri soo bixin naga daaya hadalkaaga oo dibadda u soo saar halkaan igu jiray shaarka hoostiisa shaarka ku aan qabay dibadaan u soo saaray wuxuu ahaa horta balac iyo dhirweys leeka qadraaxta leeyahdo isla kaan 40 cm 40
centimeter oo qarqad cad buluug ah dhexdana qarqad buluug kulligeeda laakiin dhexda xidig cad oo shingeys ay ku samaysan tahay aan ku soo qarxaan loola jeeday markaan u micnay ragii meesha joogayna badan ahaantii ay la raaceen oo iga raali noqdeen iyo waan sacbiyeen markaan uga sheekeeyey innagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haase 5 gabadoo la qaybiyey annagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaalka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggaan iyo بلد سومالين مدوحين شرا حقني وقاعدين يمدو حق شان كوفركان NFD iyo tan oo Talyaani xukumayay aynagu weynu sawna hadaynu laganahay hadaynu Soomaalinahay waxaynu nahay shantaas gobol ma shan gobol hadii oogay dadka afartii adinimada ka ay tahay shantaan xidibtu waa Soomaali guud ahaan shantaan geesna waa shanta gobol ay Soomaalidu tahay cadaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo niyeystaa gabayo iyo mahmahaya ku jira cadaanku waa nabad wadan nabadeed in ahaadi barwa buluugaan ay ku dhici jirto hadii waa doctrino kun oo waxaynu leenahay badalina ku wareegsan iyo buuraba inta Soomaali waxa la yiraahdaa wada waa cagaaranta saaran ma in disaat mali aynagoo dhan macnaheedii wuxuu ku leeyahay shantaas gees iyo xidigtaas cad buluug ku dhex jirto nina male xisbi malaha aniga igu khaas anigii sahiis ninkii ugu daraa leegada ama kontraya ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara nolow محمد عثمان بالو محمد عثمان إدمون بالو لما كرهني وعير معي انتي كلا ما يشعصر لسكو راعي على كانوا انه عالم كسمالي واحد عيو كدم بي وشاس مركا العدي قاضي ترياني عيو ميشا مركا حيسي هاد بي وبحي معتي ارنتيو وحي راديين سي عالم كاس لسكو راعي اي سنون نقومكي ويبقى سوين ديسين باجير مثل واحد جري حسبي كان اي تركولور صدح دي تلياني قاعد عسا يسوي حقين لكن اسكو قلبين هاي كلا بدلين لكن عذركي سايتها صدح دي عقاركي عدانكي يقدوكي دبا يسكون وحبا لواجه وحي هذا المركي الدنبي الله يجري عنيك خاصهان إذن شركي يقصوا علي ninkii noo ahaa chairmanka oo territorial councilka Dr. Gasbari oo yiri very sorry congratulations على waxaad samaysay laakiin waxaan ka xumahay in gelin maxaa jira sida aad ogtahay calan qola leedahay qolada kale lama qaadan karto adduunku saas weeye marka maxuu jeedaa xiddigtan wuxuu ku qaldahay Unione Africana meesha Belgium halkan Congo yaa wuxuu lahaa dhowr region marka waxay ka dhigeen sidii dowlad overseas oo dibadda ah tiiba waxay lahayd exactly calanka iyagoo kale xiddigtu laakiin dahabi tahay هروبي معنا يعني شنت جيس بيلهاي عالم كوفا وعجارها كايو كل بلوها لكن إن شاء الله تاي فيما مركز وحى على يدي تاسع تروح على المي كما ينام في سنة تايرو وعد تاسسه وأنا جاي باي وحنا يستعمل كده تبلوكوتو كل أدون كل علامات ما أنت تجرا أما هذين تحت وزاي أما هذين دولة مستقلة عالم كان شيء اسمه وعنوه هو كان يونت كونغو بنج وتيسو سوى الذهب تايران واحد هذو أرنت الدبا لوغو نقول إنه لا كبر ومركي حوجا ويسوي سوى بتاعه والو قلنا مكان مايا مركي حوجا تاعن قعد كيستيبي فرح تقاعد عالم كيسيدا هيا لوغو قرار الرضا كليغا
muddo dheerna kusoo jiray halgan soona arkay dhibaato gumaysi maxaad kula talin lahayd dallanta maanta jirta wallaahi haddee wuxuu yidhi nin samayo mahmaahay farasigu macaan yahay ninkii meelku maray baa ogub waxay la tahay gudnimada iyo waddankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan og waxay tahay hase ahaatee waa u dhalasho oo ninku mar hadduu wadaninimo gasho khaas hadduu dhallinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoonayn inuusan baqayn waxaan ba anigu ogaaday baqdintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeya gashaa wixii ka horeeya waxaad moodaa inuu geesi iska yahay nafta hore ah anigu waxay la tahay inaan waddanka nin kasta fardi kasta meesha kaga habboon waajib bay ku tahay sida faraa'isha ilaahay nagu leeyahay waddan xubbul waddan ma aha wax saaran shirka marka ma idinku gooni idin ahaa mase cid kale jirtay oo marka ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo marka ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen may shirkaba waxaa la yidhi waa in calanka la soo hindisaa waa la dhowrayo waqtigaa nala siiyey waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydinka United Nation baa soo dirtay adeeg waxay yidhaahdeen waa kan lagu joogay oo Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garta ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa markana la yidhi keena calan annaga calankii anigu aan keenay wuxuu ahaa calan anigu aan nina ila lahayn taas waa aan caddaynayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawirooday ama anigu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berriyo kale la fariisanayay matalan inaan anigu central committee baan ka mid ah committee central dalaga inaan inta go'aan yiri calankaasaan wata anigu waa aniga hadda shaqaalaha laba fariisto leegada meel gooni aan fariistaado leegadan inta barotaliin balaayo oo dhan oo si ilxun baa lagu fiiriyaa waayahay baa leeyahay allah kugu barakay calanku saasaan anigu meesha leeyahay haddii wax badan la hadlayo laga munaaqashado intaan hadalkii la bilaabin taas waan ka soo dhaafay yaan waxaan idhi oo la yiri meeshan maanta waxa laga hadlayaa inka chairmanka markuu furay calankii waddankan calan u ahaan lahaa waxaana goynaya nimankiina halkaan fadhiyo misnita shiiciga laydin yidhaahdo consilia territorial waddanka marka mucaabtiisi ah saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa calankii daraaddeed intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anigu ma hadlin waa u dambeeya nin hadla waxaan idhi Mr. Chairman anigu waxaan rabaa inka ra'iiska meesha ka ah
intaan laga hadlin waanaan dibadda halka munaashaban waxaan codsanayaa in la ii geliyo waa proposal anigu aan leeyahay maxamed xawaalaha waxaan ugu jira meeshaan arkayaa councilka 10 nin oo aan Soomaali ah 4 waa Talyaani 4 waa Carab 2 waa Hindi Pakistan oo marka iyagu maxay ka qabanayaan meesha waxay ka qabanayaan waa economic operators dalkii degan yihiin la xoolaha iyaga haysta Talyaanigoodii baa u yimid hadii waa ragal rabaa inuu meesha dhanba ka muuqda oo qolatan xataa Brotaliankan nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid weey ay xisbiga ay dab wato halkan iswaayeen marka ajira waxa la yiri meeshii maadaama hadda ay tahay loo dhiibay in administration fiduciario waa dadka dalka jooga Talyaaniga marka ay ku dareen 10 ajnabiga operator beerihii dukaamadii maqaayadihii industriyaha iyaga ah Soomaali waxay satalmaan ariga gooyas ka raba inay wadanka dawlad ka dhigaan hada haate nimankan waxay kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno la baas maadaama ay u dhalan dalka ee ninka may adoo igalama hadli kadib baan waxa igala hadli karaa councilka waa ay joogan Soomaalida weey waxaan rabaa vote in la igariyo vote baa la igariyo majority waan ku هذه عاد الصومالي وفرحت هذا الكلام انت عن صومالي ماشي كبحلي صومالي خاصة مع شير مانكي لو جوغن waxaan iri nin Soomaali aan ka dhiganayna ninka rag u fulweyna una mudnaa meesha joogay yani aan ku dar proposalkayga isagoo jeernaanama taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saameysay hay qoomi ahaan laga hadlay oo geedi lagu raabo qolo walbateedu la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan iri chairmanka Mr. Chairman anigu caalam baan wadaa halankan hadda aan wadana ma calan xisbi iyo qolo iyo nin gooniye iyo midna waa calan Soomaali waxaan ka codsanayaa odayaasha jeeran halka dhameeyo waa idin tusahaya inaan hadalkayga dhabqin kulliida ayaa dhabna la ii dhageystaa meena markaad garataan saa doontaan laakiin marka hore dhageysta meeshii joogtaa jiri soo bixin naga daay hadalkaaga oo dibadda u soo saar halkaan igu jiray shaarka hoostiisa shaarka ku aan qabay dibadaan u soo saaray wuxuu ahaa horta balla iyo dhirways leeka qadraaxta leeyahdo oo isla akaana 40 cm 40 cm oo qarqad cad blue dhexdana qarqad blue kulligeeda laakiin dhexda xidig cad oo shingeys ay ku samaysan tahay aan ku soo qarxaa nolosheeday markaan u micnay ragii meesha joogayna badan ahaantii ay la raaceen oo iga raali noqdeen iyo waan sacbiyeen markaan uga sheekeeyey inagu haddaynu Soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haata 5 gabal la qaybiyey waanu ma inaan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaalka yaa jiro mid waxa Faransa mid xaggan iyo Somaliland mid waxa jira xaggan iyo Ogaadeen mid xagga shan koonfurkaan iyo NFD iyo tano Talyaani xukumayay aynagu weynu sawna haddaynu laganahay haddaynu Soomaalinahay waxaynu nahay shantaas gobol ma shan gobol hadii oogay dadka afartii adinimada ay tahay shantaan xidibtu waa Soomaali guud ahaan shantaan geesna waa shanta gobol oo ay Soomaalidu tahay cadaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo niyeystaa gabayo iyo mahmahaya ku jira cadaanku waa nabad wadan nabadeed in ahaati barwa luugaan ay ku dhici jirto hadii waa dadkeeno kun oo waxaynu leenahay badal in ku wareegsan iyo buurba inta Soomaali waxa la yiraahdaa wada waa cagaaranta saaran ma in desert mali aynagoo dhan macnaheedu wuxuu ku leeyahay shantaas gees iyo xidigtaas cad buluug ku dhici jirto
midna male xisbi ma laha aniga igu khaasa anigiisu hindisay ninkii ugu daraa leegada ama kontrari ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara nolow maxamed cusmaan baa maxamed sheekh cusmaan edmond baa loorin lama kala harin wuxuu yar maaha intii kale meeshaasaa la isku raacay calankan inuu calanka soomaalida waxaa dhacay oo ka dambeeyey guushaas markay dhacday qoladii talyaaniga ahayd oo meesha markaa haysay aad bay uga xumaatay arrintii waxay raadiyeen si calankaas la isku raacay ay usan u noqonkii way waxay soo hindisiin baa jira matala waxaa jiray xisbi keenay tricolore saddexdii talyaaniga ahayd aan saa isugu xigin laakiin ay isku qaldeen ay kala bedeleen laakiin aad arkaysa ay tahay saddexdii cagaarkii iyo cadaankii iyo gududkii dib ay isku noqdo waxba la waayey waxay heleen markii dambe oo la ii yeeray aniga khaas ahaan iyadaan shirkii ugu soo celin ninkii noo ahaa chairmanka oo territorial councilka Dr. Gasbari oo yiri very sorry congratulations aan waxaa samaysay laakiin waxaan ka xumahay in gelin maxaa jira sida aad ogtahay calan qola leedahay qolada kale lama qaadan karto adduunku saas weeye marka maxuu jeedaa dictator wuxuu ku qaldahayay unione africana meesha Belgium halkan Congo yaa wuxuu lahaa dhowr region marka waxay ka dhigeen sidii dowlad overseas oo dibadda ah tiibaa waxay lahayd exactly calanka iyagoo kale digtu laakiin dahabi tahay هروبي معنا يعني شنتي جيس بيلهاي عالم كوفا وعجارها كايو كل بلوها لكن أي شغلتها فيما مركز وحى على يدي تاسع شتوحى المي كما ينام في سنة تايرو وعد تاسسه وانو هاي باي وحنا هيستعمل كده تبلوكوتو كل أدون كلنا علامات ما أنت جرا أما هذين تحت وظائف أما هذين دولة مستقلة عالم كان شيء اسمه وعنوه هو عمد كان يونت كونغو بنج وتيسو سوى الذهب تايضا وعدا هذو أرنت الدبا اللغو نقول إنه لا يكبر ومركي حوغا واريا ويسولا كتاها والو قلدم كلام مايا مركي حوغا تاعمكو عد كيستي بي فرح كقاجي عالم كي سيداس هيا اللغو أقولها الرهدو كليغا هذو muddo dheerna ku soo jiray halkan soona arkay dhibaato gumaysi maxaad kula talin lahayd dhalanta maanta jirta wallahi hadee ooyiri min samayo maamahay farsin macaan yahay ninkii meelku maray baa ugu ay la tahay gudnimada iyo wadankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan og waxay tahay hase ahaatee waa u dhalasho oo ninku mar hadduu wadaninimo gasho khaas hadduu dhalinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoonayn inuusan baqayn waxaan ba anigu ogaaday baqdintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeyay gashaa wixii ka horeeya waxaad moodaa inuu gees iska yahay nafta hore ah anigu waxay la tahay inaan wadanka nin kasta fardi kasta meesha kaga habboon waajib bay ku tahay sida faraaisha ilaahay nagu leeyahay wadan ma aha wax saaran
shirka markaa ma idinku gooni idiin ahaa mase cid kale ay jirtay oo markaa ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo markaa ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen? may shirkaba waxaa la yidhi waa in calanka la soo hindisaa, waa la dhowraya, waqti baa nala siiyey. waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydinka United Nation baa soo dirtay adeeg, waxay yidhaahdeen waa kan rag ugu joogay oo Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garta ay gartaan. saasaa naloo sheegay, annagii baa markana la yidhi keena calan. annaga calankii anigu aan keenay wuxuu ahaa calan anigu aan nina ila lahayn. taas waan caddaynayaa maxay inuu shakigu ka baxo, ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawirooday ama anigu wax ii qarsoon baana. waxaa jiray maalintii berriyo kale la fariisanayay, matalan inaan anigu central committee baan ka mid ah, committee central dalaleeg, inaan inta go'aan idhi calankaasaan wataa anigu. waa aniga hadda shaqaalaha laba fariisto leegada meel gooni aan fariistaayo, leegadan inta barataliyin balaayo oo dhan oo ilxun baa lagu fiiriya. waayahay baa lihi allah kugu barakay. calanku saasaan anigu meesha haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin, taas waan ka soo dhaafay. yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshan maanta waxaa laga hadlahayaa ninkii chairmanka markuu furay calankii waddankan calan u ahaan lahaa. waxaana goynaya nimankiina halkaan fadhiyo senator Sheikh Laydi yiraahdo consider territorial waddanka marka mucaabtiisi ah. saas daraadeed baa maanta shirkan waxaan ku furaynaa calankii daraadeed. intaas markuu yiri oo calamo badan la keenay anigu ma hadlin, waa u dambeeyeen. waxaan idhi Mr. Chairman anigu waxaan rabaa inta ra'iiska meesha ka ah intaan laga hadlin waanaan dibadda halka munaashaban waxaan codsanayaa in la ii geliyo waa proposal anigu aan leeyahay Maxamed Xawaala. waxaan lagu jira meeshaan arkayaa councilka 10 nin oo aan Soomaali ah, 4 waa Talyaani, 4 waa Carab, 2 waa Hindi Pakistan. oo marka iyagu maxay ka qabanayaan meesha? waxay ka qabanayaan waa economic operators, dalkay degan yihiin, la xoolaha iyaga haysta. Talyaanigoodii baa u yimid, haddii waa raggal rabaa inuu meesha dhanba ka muuqda oo qolatan xataa Brotalianka nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid weyn. maxay xisbiga ay dab wato halkan SYL. marka ajira waxa la yiri meesha maadaama hadda ay tahay loo dhiibay un administratione fiduciario waa dadka dalka jooga. Talyaaniga marka ay ku daran 10 ajnabiga operator ama beerihii, dukaamadii, maqaayadihii, industriya iyaga ah. Soomaali waxay satalmaan araga qoyas ka raba inay wadanka dawlad ka dhigaan. hada haatee nimankan waxay kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno la baas maadaama ay u dhalan dalka. seen ninka may adoo igalama hadli kadib baan waxay gala hadli karaa councilka waa ay joogaan Soomaalida weeye. waxaan rabaa vote in la igriyo vote baa la igriyo majority waan ku هذه عاد بالصومالي وفر حد هذا الكلام. انت عن صومالي ماشي كبحلي صومالي خاصة مع شير ما يمكن لو تشوفوا انه حنري من صومالي هنكدغنين يمكن رجعوا في الويناونا مضمع ماشي تشوفي يعني ان يا عن كبر بروبوزل كي يسوي شير معنا كاس فايده وين او ددك عاد u saameysay hay qoomi ahaan laga hadlay oo geedi lagu raabo qolo wadateed la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan yiri chairmanka Mr. Chairman anigu caalam baan wadaa halankan hadda aan wadana ma calan xisbi iyo qolo iyo nin gooni iyo midna waa calan Soomaaliya. waxaan ka codsanayaa odayaasha sheegan halka dhameeyo waa idin tusaya inaan hadal layga dhabqin oo la ii daaya dhabna la ii dhageysta macnaha markaad garataan saad doontahay laakiin marka hore dhageysta qoran meeshii joogtaa yiri soo bixin naga daaya hadalkaaga oo dibadda u soo saar. halkaan iigu jiray shaarka hoostiisa shaarka ku aan qabay dibaddaan u soo saaray wuxuu ahaa horta balac iyo dhirweys leeka qadraaxta leeyahdo oo isleekaan 40 cm
centimeter oo kharqad cad blue ah dhexdana kharqad blue kulligeeda